Munaasabad lagu daahfurayay madasha xisbiyada qaran oo ay ku mideysan yihiin qaar ka mid ah xisbiyada siyaasadda dalka ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Waxaa munaasabada ka qayb galay gudoomiyaha madasha xisbiyada qaran, madaxweynihii dowladii ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed, gudoomiyaha xisbiga UPD, madaxweynihii hore ee dowladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, madaxda xisbiyada dalka ee ku mideysan madasha, xildhibaano, aqoon-yahano, siyaasiyiin, dhalinyaro, haweenka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. Madaxweynihii dowladii federaalka ahayd ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay dowladda Soomaaliya inay ka gaabisay hanaanka federaaleynta, isagoo sheegay in dowladdu aysan gaarin heerka degmooyinka ee federaalka. Hogaamiyaha ka yahay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweyneena federalismka inay sii dedejiso oo maanta degmooyinka jamhuuriyadda dhan maamul ay leeyihiin si shabaabka loola dagaalamo oo loo waxaayo. federalismka markii la abuuray ugu yaraan caasimadaha dawladaha federaalka waa ammaan, qaarkoodna degmooyin badan oo dawladahaas ka tirsanaa ammaan ah oo meelo yaryar ayaa cadow ku harsan yahay. dawladnimada in la sii wado oo degmo la geeyaahay waxay ahayd waxa dhimanay ahayd saddexdii lakab ee dawladnimada, dawladda dhexe, dawladda federaalka iyo dawladda deegaanka, local government waxa la yiraahdo lakabkii dhinaayo ahaa. sheekadiisa waxaan u maleynayaa maalin maalmaha ka mid ah inaan la soo qaadin xataa warsee la yeelaa tii jirtay aaba ha dhicin ha jabin ilaahow yay burburin ilaahow inta ka celi xalay waxa ka dhacay muxuu ahaayey garoowe waa maqlaysay kismaayaan hore ugu soo wareernay kii waxaan ku soo wareernay muxuu ahaay koonfur galbeed haddaa galmudug ay ka taagan tahay oo la sheegayay dadkii qaarkiis xataa muwaadiniinta ma dhoofi kartid ma bixi kartid inay dowladda awooddeeda inay u isticmaasho sidaas waa soo tijaabinay laguma cusbo xataa kuma sirmi karno dadka Soomaaliyeed kuma sirmayaan waan soo tijaabinay waa soo joognay allahumma dhalinyarada 20 jirka iyo maxaan ku raasoo 30 jirka waa laga yaabaa inuu keen laakiin dawlad sida la sheegay BBC lama dhageysan karo leh waa soo marnay. Gudoomiyaha madasha xisbiyada qaran, madaxweynihii dowladii ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa sheegay hanaanka loo dhisay madasha iyo waxyaabaha ay u taagan tahay. waxaa la idiin sheegay madashaani waxay u taagan tahay ilaalinta dastuurka, sarreynta sharciga, meelmarinta sharciga, dhowrista xuquuqda muwaadinka, taasay u taagan tahay. intaas qof caqli leh miyaa diidi kara? intaas qof caqli leh miyaa diidi kara? waxay u taagan tahay midnimada. midnimada ma ilaalin kartid haddaan sharci jirin, haddaan sharciga la ilaalin. xuquuqda iyo xurriyaadka muwaadinka Soomaaliga maalinba warba waa curdo. shabaabku waa ku takrifalaan, dawladdu waa ku takrifashaa, guryaha dhexdoodana waa lagula takrifalaa. ilaahay wax loogu dhowaado waxaa ugu fadli badan kalimatu xaqin cinda sultaanin jaa'ir. midowga xisbiyada iyo madashan waxa ay ku soo beegmayaan iyadoo aan wali la ansixin sharciga doorashooyinka qaranka, taas oo wali hor yaalla baarlamaanka Soomaaliya, sidoo kalena dastuurka dalka uu dhamaanayo bartamaha sanadka soo socda ee 2020.